Bismillah. Haddii aad tahay qof Forex ku jira oo doonaya inuu account live oo furto, boqolkiiba boqol waxaa hubaa in muuqaalkan uu aad kuu saacidayo. Waxaan isbarbar dhigi doonaa brokerada ugu caansan ee Soomaalida ay isticmaalaan, isla markaana live account ka furan kartid iyo midka waqti xaadirkan haddii aad bilow tahay kuugu habboon. Waxaan isbarbar dhigi doonaa oo keliya waa 3 broker. Okay, way jiraan brokero aad u fara badan, laakiin waxaa jira kuwo badan oo aan kasoo tegay. Brokerka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa FX Primas. Haddaba FX Primas waxay leeyihiin ilaa iyo 3 account oo kala duwan oo markaa live account aad ka furan kartid. Midkaan deemada inaga dhaaf. Okay, iyaga marka dhexdooda isma si barbar dhigayno, laakiin waxaa fiirinaynaa for example qof cusub oo hadda Forex ku soo biiraya, doonaya inuu live account qaato, yacni budgetka uu haysto uu iska yar yahay halka uu ka bilaabi karo. So always waxaan isbarbar dhigaynaa waxay tahay account-iga ugu hooseeya. Haddaba FX Primas account-kooda ugu hooseeya live-ka marka waa noocan classic loo yaqaano. Haddii aad fiirisid base currencies-kooda waa kuwan halkan kaaga muuqanaya. Sidoo kaleetana average speed-koodu waxa uu ka bilowdaa 1.5 pips. Aad buu u sarreeyaa sidaan arkayno. Leverage-kooduna waa 1 to 1000. Sidoo kale isagana waxaa moodaa inuu iska meel dhexaad yahay. Marka la barbar dhigo yacni brokero kala duwan. Sidoo kale sida halkan kaaga muuqanaysa MT5-na waad ku trade gareyn kartaa iyo weliba MT4 xitaa C-Trader. Ugu dambeyn waxaa arkaysaa minimum deposit-kooda inuu yahay $15. Marka waxaanu dhihi karnaa sida caadiga ah ama standardka FX Primas qofku waa uu ka furan karaa account live, laakiin xoogaa spread-kooda ayaa badan, leverage-kooduna waa hooseeya. Okay, inta markaynu isla aragno waxaanu imaanaynaa FXTM. Isagana waxaanu arki doonaa inuu leeyahay 2 account oo kala duwan, Advantage iyo Advantage Plus. Minimum deposit-kooda waxa uu yahay $200 ama euro sida halkan ka arkaysa markaasi. Spread-kooduna account-ka Advantage-ka waa midka ugu hooseeya, wax spread ma laha, balse commission buu leeyahay oo markaasi 3.5 per lot. Suma fahmin. Isagana sidoo kale waa ku trade gareyn kartaa. Waxaa la yiraahdaa MT5 iyo MT4 iyo waxa la midka. Laakiin sida halkan inooga muuqanaysa commission-kooda ayaa iyagana aad u badan, balse wax spread ma laha. Sidoo kaleetana deposit-kooda ayaa aad u sarreeya oo qof bilow laga yaabo inuu ka adkaato inuu 200 markaas uu awoodi karo. Waayahay, brokerka ugu dambeeya waa Just Markets. Okay, Just Markets waa brokerka runtii anigu aan kuu doori lahaa. Waan isla arki doonaa sababta aan kuugu doorayo. Horta MT5 iyo MT4 labadaba markaas waa ku trade gareyn kartaa. Waxayna leeyihiin sida kuwa muuqanaysa 3 account oo kala duwan oo yacni live account aad markaa ka furan kartid. Minimum deposit-ka midka standardka ah baynu inagu markasta fiirinaynaa sida aan markaasi bilowgayba kuu soo sheegay. $10 ayaad ku deposit gareyn kartaa oo minimum-ka. Dabcan waxaan filayaa inuu qofku markaa awoodi karo qofka bilowga. Spread-ka aad buu u yaryahay sida arkaysa oo 0.3 pips ayay markaasi spread-kooda ka bilaabanaya. Wax commission account-ka standardka sidoo kaleeto ma uu laha sida halkan kaaga muuqanaysa. Instruments-kan oo dhan account-kaagu markaasi waa uu leeyahay. Account currency-guna waa dhammaan inta halkan kaaga muuqanaysa. Sidaa daraaddeed waxaan isla aragnay in minimum deposit-kiisu yahay kaliya $10. Spread-kiisuna uu aad iyo aad u yaryahay. Wax commission-na oona markaas oona lahayn. Waa midka runtii aan kula talin lahaa qof kasta oo bilowa oo doonaya inuu hadda broker cusub oo live account uu ka furto. Okay, sidoo kaleetana waxa ku darsataa crypto ayaa lacagtaada kula bixi kartaa. Within 5 minutes ayaa lacagtaada markaasi ay kugu soo gaaraysaa. Aadna ku deposit gareyn kartaa, aadna kula bixi kartaa. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah kugula talinayaa haddii aad doonaysid inaad live account aad furatid inaad ka furatid brokerkan Just Markets. Guul baan kuu rajaynayaa. Muuqaalkan waxaan rajaynayaa inuu ku anfacay. Saaxiibkaana la wadaag.